waqtiga seexanaysid iyo waqtiga dadka kala seexanaya isku mid maaha horloge biologiga waxa la yiraahdo way isbedeshay marka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مر لبعض والله marka waxa si badan doonaa videogeeni ku saabsan hurdo la'aanta maanta hurdo la'aanta markay ugu dhacdaan baan markay hurdo la'aanta ugu dhacdo waxyaabo badan ma ku soo dul saaraya maaragtay noloshaada waxyaabaha kamid ah maanta marka qofku hurdada si fiican ugu dhirgayo markay hurdada kugu yar tahay waxyaabaha dhibaato ku soo dul saaray waxa kamid ah noloshaada wixii qabsanayso ku dhamaan miyir qabsanaysa ka soo qaad maanta hadii wax xafidaysid ma xafidi karisid ay ku adag tahay haddii adonis maskaxda inta ka shaqaysid oo de waxan reasonomayaal ah waxaysid mathematican bay soo fiiga ma waxayn karisid ku adag tahay waxyaabaha ay ku dhanba ku keenayaan aragta hurdo la'aanta dhibaatayaal badan ay soo dulsaartay marka maanta waxa ku fududaa maalmaha kale dad noqonaysa ma aragta wax aad iyo aad ku dagaaltamaysid aragta oo waxa noqonaysa in dagaal ku jira sida u qaban lahayd waxyaabaha nolosha fududay marka waxa arkaysaa qofkii ka soo qaad maanta markuu shaqeynayo kala weydiiyay shaqadaada ka soo baxan waxyaar isagoo dadaal badan waqti badan juhdi badan waxaynaya liana jirkiisu sidii u baahnaa uu nafisi marka waa sidii maashin markuu shaqeeyo kasii shaqaysiinaya xoog sidii wax u soo saar lahaa taa waa dhibaatayaasha ugu horeeya ee qofka ku soo darsaar karay marka maskaxdaaduna waxyaabo kala maqli karaysa codad jirin waxa dhibaatayaal ku keeni karay maaragtaa macala caafimaad ahaan marka la eego waxyaabo badan ba ku imanayo maanta waxa la eegayaa waxa la yiraahdaa badanka dadka hurdada la'aanta ku dhacdo xanuunada soo dursaar waxa kamid ah xanuunkan la yiraahdo Alzheimer-ka amba ilowga maskaxda kugu badanayo waa aragteen baa umaleeyo dad duqa oo de maskaxdoodii dadkii kala saar laaba maaragtaa dadkii garab joogo iloway wax kasta oo noloshooda ku saabsanaa ka xanuunada ku dhici kara Ilaahay naga wala badbaadiyo xanuuno kale waxa ku dhici kara wadnaha waxyaabo badan baa wallahi dadka soo dursaar kara marka hurdo la'aanta ku yaraato amba hurdadu ay kugu yaraato waxyaabaha baa ku soo dursaaraya taa way la fahamtay ma malaya marka horta waxa weeyaan laba shay baa la kala saaraa maanta markay hurdo la'aanta kugu dhacdo ma hurdo la'aana mise waxa jira dad waxa jira hurdo la'aan oo seexan kara laba ha noqoto subax ha noqoto habeen ha noqoto galin kale oo hurdadu khalaas ay ka boodayba iyo dad waxa jiro kale hurdo la'aan ay u timiday habeenkii laakiin subaxdii seexan karaya ka soo qad habeenkii ku dhan buu durdurayaan waxyaabo iska shirshiraya waxa hurdadu way u iman lahayd laakiin subaxdii waxaad arkaysaa qofkii iska seexanayaan oo hurdadu si fiican uga imanayso laakiin nasiib daro maanta zamaankan ku noolahay aan nasiib wacanno waxa la shaqeeyaa gelinka hore badan kale wala shaqeeyaa marka arkaysaa isku qasbaya qofkii uu kacaya laakiin markuu shaqo tago shaqadii gaabasaynayo oo hurdadu markii soo imanaysay khaatiin la taagay arkaysaa arka labada marxalad weeyaan hurdadu khalaas ka booday amba hurdadaadu horloge biologiga isku mid maaha horloge biologiga dadka kale waqtiga seexanaysid iyo waqtiga dadka kala seexanaya isku mid maaha horloge biologiga waxa la yiraahdo way isbedeshay marka waxa seexanaysa awal ka soo qaad habeen waxyaabo ku yimid ka soo qaad waxa bilowday shaqo habeen ka soo qaad waxyaabo kale marka waxa isbedelaya baalkii horloge biologiga giba isbedelayso waxa noqonaysa dadka subaxda marka seexatidna habeenkii marka ka soo qaad dib u bilaabay shaqo kale subaxdii la kacayo ku adkaanaysa marka dadku isku wala mid ma dad waxa jira habeenkii hurdadu u iiman ama dad habeenkii u timid marka qofka soo intuu ogaado oo markii kasta isku bambadhigay dadka hadii aad tahay dad hurdada subaxdii seexda isku baalkii isku nidaami sidii subaxdii iskaga seexlan si fiican insha Allah ana wallahi markii kasta consultation waxa ay baqabo maskaxdiina ama fikradiina amba hurdadiinu sidee bay tahay sidii aad u noqon lahayd dad caafimaad oo wax soo saar leh insha Allah marka taa waa dhibaatayaasha yare kooban aan soo saarin inkastoo jiraan in badan hadii maanta aan ka hadlano qaybta labaad xal maxaa jira maanta xal marka waxa ka soo mushkilad marka la soo madhigo xalliyaal balkana maanta horta xalliyaasha ugu horeeyay dadku keeneen waxa kamid ah teknolojiga amba waxyaabaha yani casriga ee noqoto aaladaha yar casriga sii batay liana waxa u sii batay wax kale maahe waxa la dareemay maanta dadku hurdo la'aanta u imanayso maalinta ka sii dambeeya intii tiradoodu sii badanayso ha noqoto khaas ahaan wadanada horumar gaaray ee Yurub ama Mareykanka marka ragii maanta marka maalin lacag doon tahayna waxaad eegaysaa meelaha dhibaato u jiraan dhibaatayaasha markay jiraan dadka ugu badan ee hadii dhibaatayaasha soo dursaaran dad badan yihiin waxa islaanaasha waxa jirta wax faa'iido marka waxa arkaysaa dad shirkado badan oo ku takhasusay waxyaabo sidaayo oo soo saaraya aalado ka soo qaad aalado waxa aragtay ma umaleey publicity-ga baa yar khafiif oo sidaaya oo maskaxdaada dul saarisid oo telefoonkaaga ku xiran oo ku sheegaya hurdadaadu sidee bay hayd sidee baa u saaxatay ma fiican tahay ma xun tahay
oo la siiyay 400 euro haddii aan khaldamayn 400 euro waa la siiyay iska qaali laakiin wax aaladaha kuwa kale miyaarada yaro macala oo ay ku tirada ku xirantay aaladihii baa sii batay maalinta ka sii dambaysa sidii dadka lagu gargaari lahaa sidii u seexdaan wallahi alxamdulillah maanta marka ay hurdadu waa wax qaali oo lacag badan baa bixinaysa maanta u seexleedo waqti kooban taawa aaladaha markaan eegno inkastoo sii badanayaan oo maanta ku soo koobin videogan aaladaha jiro ku dhan talabaad ay jira waxa loo soo bandhigaa dadka waxa la yiraahdo somnifère kaniina loo soo bandhigaa sidii cunaan ay hurdadu ugu timido wallahi nasiibadana kaniinada badan xal bi moodaan may xal ma marka baxsiyaal la waxeeyay maanta ka soo qad baxsi way waxeeyeen UK amba baalkii university baalkii Wyoming kamida ayaa soo saaray tiro badan maanta markay cunaan dad badan markay cuneen tirada ay qaateen dadka waxay eegeen marka waqtiyaashay cunayaan kaniinada somnifère ayay eegeen waxay arkeen dadka waxay la kulmayaan dhibaato dhimasho dooda sii badanaysa maalinba ka sii dambaysa maanta marka qaadid kaniin baalkii somnifère marka si wadid maalba marka ugu horeysa jab baa qaadanaysa kaniina maalinta kale jabkii baa khalaas waxba ka qaadin hurdadu kugu imanayso xabad kaniina maalinta kale xabad iyo bar ilaa ma ay sii jaado kadib ilaa maaya kaniinka joojin kar weeyda somnifère kaniinka marka joojin weeyda khalaas dhibaatooyin badan baa ku imanayo efeyaal secondaire amba dibdhacyaal badan buu leeyahay kaniinada ay ku imanaya adiga jirkaaga taawa kaniinka markaan ka baxsi uu soo waxeeyay baalkii jaamacad Bordeaux ku taalan waxay leeyihiin waxaad u imanaya maanta dadka kaniinada qaata somnifère bahalkii somnifère ka qaata waxa u imanaya xanuunkan Alzheimer-ka la yiraahdo ayaa ku badanaya ilowgii wallahi gabadh ka sheekeynaysan waxay leedahay marka kaniinada qaadanayay bay leedahay gabadha waxay diiday khalaas waxaan iloway maalinta ka sii dambeysay ilowgiigi baa sii batay de laga yaabaa kadib intuu xanuunka ku dhaco ilaahay naga wala badbaadi xanuunka ilowga marka hade kulli waxaan maskaxdu maanta waxa sa u dareemaysiin maanta maskaxdu waxay xafidaa wax amba maskaxdu waxay kala xigtaa markuu qofku wax seexdo ay maskaxdaadu si fiican ay kala isku kala hagaajis laakiin hurdada haddii ku iman weydo wallahi waxyaabo badan baa maanta isbedelaya noloshaada يعني حرونته مسكحة وحرونتي جيرك وكودن كل حاجة يسويها كإن شاء الله إنه هيجيو تهانوا طلبات ويان بهالكي solutionyaasha labaadna dadku solution ma tuu inkastoo solution oranayna maxal aan u haysan kanina la qaadanayo qaarkood hada somnifère-ka ay dhibaatayaal ay leeyihiin talabaadna waxa weeyaan ama saddexaad xalalka ay dadku keeni karayaan waxa la yiraahdaa thérapie comportementale cognitive waxa la yiraahdaa jirto dadkii nacam la eegayo waxyaabaha waqtiyaasha seexanayaan waxa la eegay qof kasta waqtigu seexdo waxa la isku dayayaa maaragtaa maanta dad baa jiray ka soo qaada iski hurdada uu sariirta iska galgalanaya laakiin hurda uu yima labaad marka dadka waxay soo bandhigayaan qaybta saddexaad xal waxay soo bandhigayaan waqtigu hurdada inta yareeyaan siday u heli lahaayeen tayo hurdo tayo loo fiican anta hurdo tayo loo fiican markay shidnade waxay dadku raadinayaan bata maanta hadafku ma hurdo iska seexan sariirta isrogrog hurdo tayo la weeyaan maanta seexo hurdo tayo la waxay u soo bandhigaan siday waqti yar u seexan lahaayeen marka qayr dadna u shaqeysay dad badan ba ku faraxsan waqtiga ay seexanayaan oo hurdo tayo la u imanaysa alxamdulillah marka waan soo kaba u maleeyaa labadii video ee ku saabsanaa hurdo la'aanta wallahi hurdo la'aantuna maanta ilaahay naga badbaadiyo wax maanta tariiqyaashan aan waxyaabaha nolosha keeni karaya noloshii isbedishay fikirkeenu isbedelay waxyaabo badan oo isbedelay ayaana soo dursaari karaya noo keeni karaya hurdo la'aanta insha Allah ilaahay hurdo fiican ku raaxaysano aan ku noqono dad fiican oo wax soo saar leh ilaahay ana siiyo ilaahay hurdo la'aantana naga badbaadiyo sida wax wala fahmi lahayn marka adiga walaalkeeyo hadii aad doonaysid tan si dhaxgalo videogan aan ka sheekeeyo waxyaabo qaarkood ama waxyaabaha hurdo la'aantu maxay ka dhigan tahay hurdo la'aanta maxaa keena hurdo la'aantu dhibaatayaasha leedahay ama hurdo la'aanta xalalka maanta waan dul maray laakiin hadii aad doonaysid waxyaabaha xal ama waxyaabaha wax kamid oo aad u sii dhaxgalo si faahfaahina oo cilmi ku salaysan maanta aan waxaan ayaa inta wax nii sheego bila cilmi ku salaysan taan waa dhibaato weeyaan wax cilmi ku salaysan baxsiyaal ku salaysan aan ka wada hadalno insha Allah isoo dhikomater ama message soo dir waan ka wada hadli doonaa sida uu noqon lahayn dad wax barto cilmi leh insha Allah ilaahay dad cilmi leh naga dhigo waxaan ku rajeynayaa maalin wanaagsan caafimaad iyo hurdo fiican oo lagu raaxaysto insha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh